daawade waa fariin murugo leh marka aad eegto habdhaqanka ninkan uu kula dhaqmayo aabihiisii da'da ah maadaama gabadha uu qabo ay si aad ah ay uga xumaatay sida raashinka uu cunayo maadaama tabar ay ka tahay bal eeg waxa ay ku dhihi doonto oo ku saabsan in odayga uu ku wado miiska lagu cunteynayo fowdo dhinaca cuntada ah waxa ay ku tiri aabbahaada halkan ka kaxay waxa uu fowdeynayaa cuntada deganaanta aan halkan ugu cunayno amarkaasi ayuu qaatay oo waxa uu geeyay meel keli uu ku yahay taa oo murugo leh eeg wiilka yar iyo sida uu dareenkiisa uu noqday markii tallaabadaasi aabihiisii uu ku dhaqaaqay ilaahay qur-aankiisa waxa uu nagu leeyahay waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira bal eeg ninkan sida uu ugu dhaqmayo aabihiisii waxa uu soo fadhiisiyey meel keli uu ku yahay isaga oo ka jawaabaya hadalka xaaskiisii oo ahaa in laga dhex wado miiska ay ku wada cunteeyaan wiilka yar dareenkiisii ayaanan weli waxa uu cuntamila waxa aabihiisii uu ku sameeyey awowgiisa daawade aan daawan tallaabada xigta waxa ay noqon doonto waad u jeedaan keligiisii ayaa meel la fadhiisiyey maalintii kale ay xigtay maxaa dhacay maalintii kale ay xigtay waxaa la isugu yeeray mar kale miiska lagu casheeyo sida aad u jeedaan cashadii waa diyaar wiilka yar waxa uu ku ciyaarayaa koob u eg midka awowgiisa cuntada lagu siiyo awowgii meeshii waxaa la fadhiisiyey keligiisi uu ku ahaa cuntadan uu ku cunayay aabbihii waxa uu salaamay wiilkiisa waxa uu weydiiyey weelkaas waxa uu u wado balse jawaabtu waxa ay ahayd mid wanaagsan oo waxa uu ku yidhi weelkan waxaan u sameeyey adiga iyo hooyo marka aad weynaataan inaan cunto idinku siiyo sida awowgii hadda aad ugu siinaysaan daawadayaal waxaa abaal naga mudan waalidiinteenna marka ay weynaadaan sida marka aan yareen ay noo ogaan jireen aysan nooga tagin in aan u ogaanno oo aan uga tagin haddii aad daawatay muuqaalkan fadlan sheergaray